Shahrukh Khan oo ahayd mid ka mid ah dadka qoobka ciyaarka sameeya ee ugu caansan dalka Hindiya ayaa geeriyootay iyadoo da'deedu tahay 71 sano jir. Khan waxay lahayd xirfad cajiib ah oo socotay muddo 40 sano ah, waxayna sidoo kale ahayd macallimadii qoobka ciyaarka soo bartay inta badan jiliyaasha shirkadda Bollywood-ka ee Hindiya. Shaqadeeda waxay ka dhex muuqan jirtay heesaha ugu caansan ee lagu soo qaato filamo badan oo qoobka ciyaar leh. Waxay xirfadeeda soo idlaatay sanadihii 1980-meeyadii, xilligaas oo ay bilowday inay tababarto jiliyaasha, waxayna soo saartay atiirishooyin ciyaartooda laga daba dhacay oo ay ku jiraan atiirishooyinka ugu caansan Hindiya ee Madhuri Dixit iyo Sara Devi ama Soomaalida siday u taqaano Sara Devi. Khan waxay geeriyootay kadib markii uu wadnaha istaagay iyadoo ku sugnayd isbitaal ku yaala magaalada Mumbai, sida ay soo tabiyeen warbaahinta maxalliga ah. Waxay isbitaalka la dhigay bishii la soo dhaafay, markaasoo ay ka cabanaysay inay neefsashada ku adag tahay. Horey waxaa looga baaray cudurka COVID-19 balse waa laga waayay, sida ay ku warameen warbaahinta Hindiya. Wiil ay habaryar u tahay oo lagu magacaabo Manish Jawani ayaa geerideeda u xaqiijiyay wakaaladda wararka ee PTI. Shahrukh Khan oo dhalatay sanadkii 1948 waxay shaqada filimada ku biirtay iyadoo caruur ah. 1950-meeyadii Khan waxay ku biirtay kooxda qoobka ciyaarka u sameysay atiirishooyinka, waxayna kasoo muuqatay filimada uu ka mid yahay Bilmal Royce Madhumati. Waxaa filimkaasi kusoo daray agaha lagu magacaabo B. Sohanlal oo markii dambena guursaday. Halkaasi wixii ka bilowday Khan waxay qoobka ciyaarka filimada u sameynaysay ilaa laga gaaray sanadkii 1974. filimkii ay kusoo gabagabaysana wuxuu ahaa Gita Mere Naam. 1980-meeyadii Khan waxay noqotay qof magaceedu si weyn u soo shacbaxay kadib markii ay bilowday inay la shaqeyso jiliyaasha Bollywood-ka ay ka mid yihiin Sara Devi Kapoor iyo Madhuri Dixit, kuwaasoo qoobka ciyaarkooda loogu jecel yahay heesaha. Jiliyaashii ay macallimada u ahayd ayaa baraha bulshada ugu tacsiyay. Waxaa ka mid ahaa Madhuri Dixit oo sidan soo qortay: "Waan ka xumahay inaan waayo saaxiibadey iyo guru Shahrukh Khan. Mar walba way ku mahadsan tahay shaqadeeda, sida iigu caawisay inaan gaaro awoodeyda. Adduunku wuxuu lumiyay qof cajiib ah oo hibo leh. Waan kuu xiisi doonaa. Aniga oo qalbi jabsan ayaan tacsi u dirayaa qoyskeeda." Akshay Kumar ayaa ka mid ahay dadkaasi tacsida diray. Sidan ayuu kusoo qoray bartiisa Twitter-ka: "Kusoo toos warka ugu naxdinta badan ee halyeeyada kooxda Shahrukh Khan aysan joogin. Waxay u sameysay qoobka ciyaarka mid sahlan sida qof walba uu ku ciyaari karo. Khasaare weyn ayay u tahay shirkadda filimada. Naftaydu nabad ha ku nasato."